qaybo ka mid ah wafdigii ka yimid Somaliland oo la socday 18 May inay ka soo qayb galaan ee waddanka Britain ayaa waxay u sameeyeen casho sharaf sagootina mudane Cabdiraxmaan Tanyelle oo ah gudoomiyaha saddexaad ee ah xisbiga kulmiye iyo Sharma Arke oo ah xoghayaha madaxtooyada kulankiisu u dhacayna waa kan xafladan maanta waxa weeye mid sagooti oo lagu sagooteeyo wafdidan sadcaalka ahayd ee tagaysa haddii la ka dhigayo wadankii qabanaysa insha Allah lagu sii nabadgeliyeenayo xafladani waxay isugu jirtaa soo dhaweyn iyo sagooti labadaba aad iyo aad badan mahadsantiin ka soo qaybgalayaasha cashada sharafta tan أنا كوسي سوتين قدوميها حسبها إن لا تشوفه رنتي كانت بدن إنه هلين إنه محوها هاي صدا كام عشاء إنه صارقنا أو إنه الربان جارها إنه كده إنه جارها إن كستود هول قرنا وكل كشرتين إنه سكور يسنو. إذا سود ويننا وانا إذا سيد ويننا وانوت ما تينو دوينا إذا سود وينو هول أدق بقى كشرتينه وقت سمينا هلو هوش على هيد. واسدة خلوية كده شاقينا وإحنا دكتور دويننا لندن وانا إذا سيد سقوتنا مرنا. حافظنا وحي هانشتي حافظ سو دوينت aad ugu fiican waliina waa tahay waxba ka sii muuqda marka runtii waxaan jeclahay intan maanta in ka badan ay timaado waxaafadii reer Soomaaliland ay ugu badnaan jireen imika ugu badan yihiin adduunka meeshaan ku joognaba in dadka iyaga ay nagu soo dhaweynayaan inay nagu soo qaabilayaan inay noo muujinayaan wixii aanu qabanayna wax ka hagaagsanayeen intuu weydin la joognay bisha Afritoolkeedii waanu nimi waxaan idin kala qayb galay sanad guuradii 13aad ee loo dabaaldegay gooni-sutaagii Jamhuuriyadda Somaliland ilaahayna sanadkiisa barwaaqo horumar iyo bashbashay lagu gaarsiiyo faraxsanahay inaan kulankan isaga ah oo ujeedadiisu tahay in lagu soo dhaweeyo mudane Cabdiraxmaan Tanyelle Mr. Sharma Arke inaynu u qabanno shirkan iyo odayaashii kale ka horeeyay oo ka mid ahaa gudoomi mayorka magaalada Cerigabo aad baan ugu faraxsanahay inta soo ka soo qayb gashay inta soo qaban qaabisay intaba waxaan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay idinka abaal mariyo